مول oo ah mid kamid ah suuqyada ugu caalamisan ee ka dhisan dalka Soomaaliya waxa uu ku yaalaa bartamaha suuqa Xamarweyne ee magaalada Muqdisho maanta mar kale boqolaal dad ah ayaa ka dukaamaysanaya kuwaasi u diyaar garoobaya maalinta ciidda ee nagu soo foole qaabka suuqu uu dhisan yahay ayaa mid ka duwan qaababkii hore loo dhisi jiray suuqyada Soomaalida inta suuqa gudihiisa aan ku jira waxay indhahaygu qabanayeen haween iyo caruur aad u fara badan oo dukaamaysanayay kuwaasi oo dhar tayo leh kana casrisan dharka lagu iibiyo suuqyada kale ka iibsanayay suuqa Muqdisho Mall dukaamada ku dhex yaala waxay indhaha u qabanayaan carwooyin bilic wanaagsan oo casri ah oo suuqa dhexdiisa laga qotomiyay mid kamid ah gabdhaha dhalinyarada ay ka adeeganayay suuqa Muqdisho Mall dukaan ku dhex yaala ayaa ii sheegtay inay ku faraxsan tahay suuq bilicdiisu noocan ay tahay oo Soomaali ku yaal inay indhaheedu qabtaan oo ay ka adeegato Assalaamu alaykum magacayga Nasra Ali waaye waxa dukaanka ka dukaamaysanaya Sawa Fashion Muqdisho Mall waa meel aad u fiican aad u faraxsanahay inaan maanta ka adeegto meeshan kani waa mid kamid ah dhalinyarada iibisa shoppingka ee xarun ku leh gudaha suuqa Muqdisho Mall isagu wuxuu ka hadlayaa dareenkiisa ku aadan u diyaar garowga maalmaha ciidda iyo qaabka dadku ay uga adeeganayaan meeshan oo maanta zaid oo loo soo buuxisay oo loo hadda dadka aan u shaqeynayno oo macaamiisha oo zaid ay u buuxa maanta Muqdisho Mall dadkan aad u soo buuxdaafinaya maadaama ay tahay Ramadaan uu gabagabay oo yahay ciidda bisha ee soo food leedahay marka macaamiisha aad ay u soo dhaweynayna waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaad Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo ku waramay afka maamulka Muqdisho Mall ayaa sheegay in mallku uu shaqeeyo saacado badan si loo qanciyo dadka macaamiisha ah ee doonaya inay habeen iyo maalinba adeegtaan waxaana sheegay in ilaa iyo gelinka hore ee habeenku ay furan yihiin suuqa Muqdisho Mall waxa waaye suuqyada kale waa ka duwan yahay suuq standard waaye oo standardada mall ku yaalo oo caalamiga ah iyo policy-ga iyo procedures-ka ay maraan mid kamid ah waaye xiritaanka xalay inta waxa ka tagnay 5 saac iyo bar intaasna waxa waaye waxa loo adeegayay customers kala duwan oo mallka imaanaya maadaama hadda suuqyada kale ee 1 saac 2 saac oo ay tahay maximum time-ka oo loo xiro waqtigeeda ugu badan anaga waxa waaye maadaama ee 10 Ramadaan lagu jiro dadka maalintii aan adeega karin oo mashquulsan waxa ugu talagalnay habeenkii xataa inay imaadaan ee ka dukaameystaan marka 10 dambe waxa siinay time-ka u furnay ilaa dukaamada ay xiraan in shaqaalaha mallka ay wada joogi doonaan ilaa 10 dambe oo ciid ah waajira waqti loogu talagalay mallka in la furo waqti la xiro laakiin ma 10 dambe oo ciid ah waxa ugu talagalnay si customerska u qancino meeshana view-geeda oo qurxan darteed iyo dadkii oo yaani mashquulsan oo kale maalmihii mashquulsan ee habeenkii inay ka faa'iideystaan ee chance u helaan inay mallka imaadaan ee ka dukaameystaan dadka adeeganaya ayaa ku niyad samaa in la siiyo waqti oo nasiib ay ku helayaan rasiidka ay ku adeegteen si ay alaabo aad u qurxoon ugu helaan maalinta ciidda oo barnaamij nasiibka ah la sameyn doono waxaana ka warbixinaya qaabka waqti oo nasiibku u dhacayo mar kale Maxamed mallkan wuxuu noqon doonaa mall oo hadda oo la tartami karo mallka caalamka marka diyaar garowga ciidana si xoog leh lagu dareemayo waliba anaga diyaar garowga ciidda waxa ugu talagalnay in mallka oo bixiyo abaalmarino ugu talagalnay dadka customerka ka adeeganayo dukaamada ka maamul ahaan iyo kiristayaasha dukaanleydana iyagana waxay ka yihiin qaybtooda ay ka qaadanayaan bilicda iyo qabadka muuqaalka qurxoon ee Muqdisho Mall waxa ku sii dheer iyadoo inta badan dukaamada ku dhex yaala ay iibinayaan shay'aad tayadoodu aad u sareyso Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi Somali Cable Muqdisho